waxaa si ballaaran looga ciiday guud ahaanba gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo lagu tukaday 3 goobood oo loogu talagalay salaada ciidda in lagu tukado wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda dalka Jamhuuriyadda Somaliland iyo waliba wasiir ku-xigeenka wasiir dowladda wasaaradda beeraha gudoomiyaha gobolka Sool maayirka degmada Laascaanood ee dadweynaha ku dhaqan magaalada Laascaanood kula tukaday salaada ciidda jaamaca guud ee magaalada Laascaanood iyagoo dadkaasi ugu baaqay inay nabadgelyada ilaashadaan dadweynaha ku dhaqan magaalada Laascaanood waxa wajiyada ka muuqday farxadda ciidda wasiir dowladda wasaaradda gudoomiyaha gobolka Sool agaasimaha guud ee wasaaradda ayaa halkaasi hambalyo uga diray dadweynaha salaada ciidda kadib halkaan ka hadlanaa waa gobolka Sool caasimadiisa Laascaanood maanta waa maalin barakaysan oo dadku aad u faraxsan yahay nabadgelyo buuxda ayaa gobolku ku sugan yahay gaar ahaan magaalada Laascaanood aad iyo aad buu fiican tahay waxaan halkan hambalyo ciidda ku saabsan uga dirayaa shacabweynaha islaamka ama shucuurta islaamka meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay soonteen iyo maanta aad ciidaysaan oo xiyada Ilaahay ka aqbal camalka waxaan gaar u salaamayaa shacabweynaha reer Somaliland waxaa la ciidiisa barwaaqo ku gaara waxaan gaar u salaamayaa shacabka reer Laascaanood waxaan leeyahay idinkuna ciidada kala barwaaqo ku gaara Ilaahay waxaan ka baryayaa cid kasta oo baahan ama cid kasta oo bugta ama cid kasta oo dhibaato haysato in Ilaahay ka dulqaado waxaan gaar u salaamayaa madaxweynaha qaranka iyo marwadiisa iyo bogaadin iyo hambalyo uga dirayaa ummadaha muslimka guud ahaan meel kasta ay joogaan gaar ahaan reer Somaliland si khaas ah dadweynaha reer Laascaanood iyo gobolka Sool oo aan munaasabadan ciidda maanta la joogno kala qayb galay waxaan aad ugu faraxsanahay Ilaahay si nabad ah inuu ciidda noogu dhameeyay magaalada Laascaanood dadkuna ay faraxsan yihiin soo hambalyeynayaan Ilaahay waxaan ka baryayaa acmaasha wanaagsanaa iyo cibaadadii aynu soo gudan Ilaahay inuu naga aqbalo inta xajiyaysa ee maanta rukniga waajibaadka islaamka gudanaysa Ilaahay inuu ka aqbalo dhammaan inta xanuunsanaysa meel kasta joogaan ee muslimka aan Ilaahay caafimaad inuu siiyo runtii duruufaha adag bay maanta dunida muslimka ku jirtaa Ilaahay inuu dhibaatada iyo xaaladaha qalabsan ee ay ku jiraan Ilaahay inuu ka dulqaado waxaan inoo rajaynayaa walaalnimo iyo iscafin sadaqada inuu bixino iyo sanadkiisa inaynu nabad iyo horumar iyo guur iyo barwaaqo iyo baraare ku gaarno assalaamu calaykum wa na'uudu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ummadda muslimiinta dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan waxaan ugu hambaleynayaa munaasabadan ciidal udh bismillaahi raxmaani raxiim waxaan dhammaan ummadda muslimiinta u dirayaa hambaliyada ciidal udh in Ilaahay ciideeda uu ku gaarsiiyo nabadgelyo iyo walaalnimo waxaana si gaar ah hambaliyada ciidda ugu dirayaa dadka iyagana waan u dirayaa hambaliyada taalamida in Ilaahay ciideeda uu ku gaarsiiyo nabadgelyo iyo caafimaad waxa kale oo kula talinayaa Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa ceelo uma qodna ciidana waa maqna ceelo uma qodna guud ahaanba degmooyinka iyo tuulooyinka iyo gobolka Sool ka kooban yahay iyadana si mug iyo miisaan la looga ciiday salaada ciidda Barkad Cumar Axmed warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Somaliland Laascaanood